meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyo Baraawe stuudiyiisa uu ku leeyahay magaalo xebeedda Baraawe caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 8.3 megahertz ayaad naga maqlaysaan Baraawe iyo tuulooyinka ku geedaaman caalamka idin wax nagala jaan qaadaysaa mareegtada internetka iminka waxaa si toos ah loogu bilaaban doono hadduu eebaha sare aqbalo barnaamijkii tartan aqooneedka ee raadiyo Baraawe uu qabanayay dugsiyada magaalada Baraawe iminka waxaan ku soo dhaweynayaa Fuad Shooble Cafe Fuad soo cismaan aad baad u mahadsan tahay dabcan waa markii ugu horeysay uu tartankan ka hirgalayo magaalada tan ee Baraawe waxaa inala sugan mas'uuliyiinta ugu sareysa degmadan oo iyaguna inoo daafuri doona tartan aqooneedkan caawa inooga bilaabanaya halkan tartankan waxaa iska kaashan doona Radio Baraawe oo tabintiisa u xilsaaran iyo diyaarintiisa shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa qayb ka ah oo taabagelinaysa sidoo kale hay'adda IRF ayaa qayb ka ah oo iyaduna taabagelinta kaalin mugle ka qaadanaysa waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa guddoonka waxbarashada ee degmada Baraawe oo isaguna kaalintiisa ka qaadanayo iyo xubno ka mid ah qurbo joogta ka soo jeeda degmadan oo imika qaarkood ay nagula sugan yihiin stuudiyaha Radio Baraawe sidoo kale muuqaal baahiyaha ay inaga daawan karaan dadka ku sugan daafaha dunida tartanka ayaa goordhow inoo bilaaban doona hase ahaatee waxaan jeclahay inaan mid ugu yeero dadka stuudiyaha nagula sugan oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta ugu sareyso degmadan laakiin gudoomiyaha maadaama uu inoo daafuri doono tartankan aqooneedka ee caawa inoogu furmayo halkan waxaan jeclahay marka ugu horeyso inaan ku soo dhaweeyo codbaahiyaha ama stuudiyaha Radio Baraawe Sayid Abubana ayaan jeclahay marka ugu horeyso inaan ku soo dhaweeyo balse uu dareenkiisa inoogu cabiro oo ku aadan tartan aqooneedkan Sayid Abubana sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka guddiga ah abaabulka tartankan qaybta kale ah Sayid Abubana ayaan ku soo dhaweynayaa stuudiyaha bal isaguna si uu dareenkiisa halkan ugu cabiro الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا ليال قدوميها دegmada Baraawe mas'uuliyiinta kale guddoonka waxbarashada iyo ardayda meeshan joogaan iyo macallimiintoodiba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga waa magacayga Sayid Taahir Abubana ka mid ah jaaliyadda ku nool Ingiriiska waxaanan imaaday degmada Baraawe inaan ka qayb galo tartankani iyo aan qabanqaabis waxaas ku noqdo alxamdulillaah waanu soortooday haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu tartankan si fiican u socdo waayahay Sayid Abubana aad baad u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaynaa sidaad uga soo qayb gashay tartankan iyo sidaad kaalintaada ugu qaadanaysa aad baad u mahadsantahay mar kale waan kugu soo dhaweynayaa stuudiyaha waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah Sayid aad baad u mahadsantahay adaa mudan tartanka ayaa inoo bilaaban doona wajiga koobaad waxa kulmi doona dugsiga hoose dhexe Zayn al-Abidin iyo waliba dugsiga hoose dhexe Dr. Maxamed Imaan ayaa kulmi doona oo caawa stuudiyaha ku wada sugan dabcan labada dugsiba ay soo diyaar garoobeen waxaan filayaa in ardaydoodii ugu aktifsanaa ay soo wada xusheen dugsiyadaasi inta aan tartankeenu bilaabanin ka hor waxaan u yeeri doonaa Muuse Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaano Abu Ubayd ayaan u wici doonaa oo isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta halkan inagula sugan bal si uu dareenkiisa inoogu cabiro Muuse waxaan leenahay ku soo dhawow stuudiyaha Radio Baraawe dhageystayaasha ku sugan Baraawe iyo tuulooyinka ku geedaamanaya in dhageysan kara dadka ku sugan Baraawe meelaha ka baxsan iyo caalamkuna waxay si toos ah inooga daawan karaan muuqbaahiyaha Radio Baraawe Muuse ku soo dhawow stuudiyaha Radio Baraawe bal sidaad u aragtaa tartankan waana markii ugu horeysay degmadan laga hirgaliyo ما شاء الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين aad baan ugu dhawahay TV-ga iyo raadiyaha ma aragtay Baraawe aad baan ugu faraxsanahay maadaama horumarka oo deegaanka hadda maanta waxyaabo badan oo iskaga bedelayo
oo haddana ay tahay waxbarashada ugu horeyso marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan kasoo qayb galo waxbarashadana waxay ka mid tahay horumarka deegaanka deegaan horumaray waxaa waaye waxbarashadiisa ayaa lagu gartaa deegaan walba deegaanku ka waxbarasho fiican yahay uu ka horumarsan yahay marka ardayda iyo waxaan leeyahay guula idin rajeynaya iyo raadiyo baraawe aad iyo aad ugu mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay abu cubayd aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga dabcan waqtigoona haya awgii waan soo koobi doonaa mas-uuliyiinta daafuraysa barnaamijkan markan waxaan kusoo gunaanudi doonaa gudoomiyaha degmada baraawe cumar sheekh cabdi ayaa ku sugan stuudiyan oo isagu ah duqa magaalada isaga ayaana inoo daafuri doona tartankan caawa oo ay ku loolami doonaan dugsiga hoose dhexe ee zaynulcaabideen iyo weliba dugsiga hoose dhexe ee dr maxamed iimaan gudoomiye kusoo dhawow stuudiyaha radio baraawe bal waxaan kaa dhur sugaynaa inaad noo daafurto tartankan caawa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذا الراديو براوي أقاسمي كحيمانا مدحة إذا عدى آد بعد سلامنا بعد الصلاة رنتي آد أو فرح سنة هاي إن ومانا ومركي أوهر إذا عدى راديو براوي ومانا ترتنا قونت كان مجرد مانا كهير جلسو رنتي وحلصو كوي كرمان تماهن dhalinyaradana maana magaalada waxay u tahay dhiirigelin mas-uuliyiintii kasoo shaqeysay iyo xaaladihii maanta maanaa marxaladii ee wadanka ay maraya annaga ognahay runtii taas waxaan ugu mahadcelinaynaa raadiyaha waayahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay dabcan cawada waxaan kaa dhul sugaynaa in tartanka aad inoo daafurto ardayda waa ay wada fadhiyaan macalimiintooda hogaaminaya iyaguna waa ay fadhiyaan guddiga tartanka waa ay fadhiyaan bal caawa waxaan kaa dhul sugaynaa inaad inoo daafurto tartan aqooneedka oo markii ugu horeysay uu yahay bal ardayduna waa ay ku maqlayaan dhankaada waxa aad ku dhiirigelin lahayd mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahadcelinayaa maadaama ay tahay waa markii bishii ramadaan waa markii ugu horeeyay oo maana magaaladan baraawe caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo arrin noocan laga hirgeliyo wax maanta oo aan isdhihi karno horumarkii magaalada maana weli ay maana sii socdaan ardayda iyo macallimiinta ay kasoo shaqeeyeen waxaan leeyahay hambalyo maadaama ay tahay maana arrin maanta maana wanaagsan tartan aqooneed qof walba aqoonta tijaabo ay tahay saas ay tahayna mar walba ku faraxsanahay in arrimo noocan aan kasoo qayb galo oo tartamo noocan aan kasoo qayb galo idaacaddiina insha allahu tacaala iyadana waa ugu mahadcelinaya mar labaad iyo dadkii taabigelinayaan dadkii kasoo shaqeeyeen insha allahu tacaala waxaana si toos maanaa usii gudagelaynaa barnaamijkii oo maanaa oo dhalinyaradii oo dahfurka ahaa annaga tan mas-uuliyad ahaan ama tan degmo ahaan ama tan maamul ahaan aadaa barnaamijkan maanaa ugu hambalyanayna wayna noo furan yihiin hawshiina waa sii wadan kartaan insha allahu tacaala hadday noqoto culeysyo kale ama wax noqoto annagana insha allahu tacaala maalin maamulka degmada kaalintooda ay ka qaadan doonaa insha allahu tacaala wixii oo maanaa waajibaad naga saaran ardaydan wixii farxadooda ay tahay diyaara unahay inaan maanaa waayahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga aad inoo soo hortay iyo sida aad ugu heelan tahay in deegaankaaga iyo bulshadaadii aad wadada horumarka u tilmaamto aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga gudoomiye wahagaaga dhegeystayaasha aynu jecelnahayo iyo daawadayaasha aynu jecelnahayo si tooska nagula socda fogaan aragga iyo weliba raadiyaha maqalka ee radio baraawe FM 8.3 megahertz markan waxaa inoo bilaaban doonaa tartanka ayaa inoo bilaaban doona waxaa tartami doona habeenkan caawa oo habeenkii ugu horeeya dugsiga hoose dhexe zaynulcaabideen iyo weliba dugsiga hoose dhexe dr maxamed iimaan ayaa wada tartami doona oo uu tartanku u wada dhexeeya shuruudaha tartanka waxaa ka mid ah kooxda ama iskuulkii haleela jawaabta saxda ah waxa uu heli doonaa 2 dhibcood ka faa'iidaysiguna waa 1 dhibac oo kaliya ayuu heli doonaa dabcan shuruudahan horey u siinay macallimiinta hogaaminaysa ardaydaasi ayaa ay ku xusan yihiin iyaguna waxaan filayaa in ay soo akhristeen tartanka ayaan gudagali doonaa guddiguna waxay u diyaarsan yihiin in dhibcaha ay idiin qoraan wixii aad kala heshaan
mar kale ku soo dhawaada tartanka bisha barakaysan ee Ramadaan ee dugsiyada ku yaala magaalada tan ee Barawe aan ugu talagalnay tartanka ayaa bilaaban doona waxaan qori tuur u sameyn doonaa labada kooxood bal kooxda ay su'aashu ku bilaaban doonto ayaan qori tuur u sameyn doonaa دكتور محمد إيمان طبعا waxaan ku hormarayaa dugsiga Zainul Abidin ardayga ay soo dirsadeen bal magacaaga ku bilow dugsiga aad ka socotid kadibna nasiibkaaga tijaabi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu dhammaystiran waa Abubakar Aadan Axmed waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe sare Zainul Abidin waayahay bal ardayga kale ayaan siinaynaa jaaniskiisa kadibna waxaad qabsan doontaan qoritoorka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وفيصل عبد الله عبد الله كان صعد الدكتور محمد إمام بريمري سكندري waayahay aad baad u mahadsantihiin markan waxaan idinka sugaynaa inaad qabsataan warqadahan mid ka mid ah haye adigana noo fura marka codbaahiyaa usoo dhawow microphone ka sheeg waxa kuu soo baxay lambar labo waa hagaag Zainul Abidin lambar 1 ayaa u soo baxay su'aalaha waxa ku hormari doona dugsiga Zainul Abidin oo lambarka koowaad qabsaday ayaa ku hormari doona waad mahadsantihiin waayahay u diyaar garooba su'aalaha soo socda tartanka ayaa si toos ah inoogu furmi doona dugsiga hoose dhexe Zainul Abidin iyo waliba dugsiga hoose dhexe iyo Dr. Maxamed Iimaan ayaa wada kulmaya caaba wareega koowaad ayayna ku madalsan yihiin dabcan gudigu waa inala socdaan iyaguna ardaydu waxaan ka codsanaynaa telefoonada gacanta dabcan shuruudaha sidaan hore u sheegnay telefoonada gacanta waa ka mamnuuc in ay markaasi banaanka la soo baxaan amaba haddii mid ka mid ah ardayda lagu arko telefoonka gacanta dhibca ayaan ka goosan doonaa sidaas ha ula socdaan waayahay waxaan ku hormaraynaa dugsiga Zainul Abidin ayaan ku hormaraynaa su'aasha ugu horeysa su'aasha jawaabteedu waxaan ka sugi karnaa ilaa iyo muddo hal daqiiqo ah halkaas daqiiqo haddii uu ka dhaco su'aashu waa ay ka wareegan doontaa waxayna u wareegi doontaa tartamayaasha kale Zainul Abidin su'aasha dhagaha u fur waa su'aal diini ah Zainul Abidin su'aasha dhagaha u fur waa su'aal diini ah sheeg ninkii nabigana ahaa boqorkana ahaa mar labaad aan kugu celiyo Zainul Abidin su'aasha dhagaha u fur sheeg ninkii nabigana ahaa boqorkana ahaa mar saddexaad ayaan kugu celinayaa Zainul Abidin su'aasha dhagaha u fur sheeg ninkii nabigana ahaa boqorkana ahaa waxaan filayaa inaad garateen su'aashaasi oo aad jawaabta la soo degdegi doontaan dugsiga Zainul Abidin Zainul Abidin jawaabta السلام عليكم مقعي أحمد علي إسماعيل وحان كسعودة دكسيه هو صدح زرع زين العابدين جوابت هدان اسكدي والنبي سليمان عليه السلام waayahay waxa uu yiri waa nabi Suleymaan calayhi salaam hadaba jawaabtaas waa hadii ay tahay mid sax ah iyo hadii kaleba bal gudiga ayaan u gudbinaya haye Usmaan waa tahay Fuad aad baad u mahadsan tahay ugu horeyn su'aasha waxa la weydiiyay iskuulka hoose dhexe sare ee Zainul Abidin su'aasha u dhaceysay sida tan sheeg ninkii nabiga ahaa boqorkana ahaa jawaabta ay bixiyeen Zainul Abidin waxay ahayd nabi Suleymaan calayhi salaam jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah waayahay Zainul Abidin laba dhibcood su'aal diini ah waxaana ku hormaray dugsiga Zainul Abidin su'aasha xigta dugsiga Dr. Maxamed Iimaan dhagaha u fur su'aasha kugu soo socota waa su'aal diini ah sheeg hadaba su'aashu waa su'aal diini ah sheeg
boqortooyadii nabi sulaymaan calayhi salaam imise sano ayay dhisnayd mar labaad aan kuugu celiyo sheeg boqortooyadii nabi sulaymaan calayhi salaam imise sano ayay dhisnayd mar saddexaad aan kugu celiyo su-aasha dugsiga dr maxamed iimaan sheeg boqortooyadii nabi sulaymaan imise sano ayay dhisnayd waxaan filayaa inaad jawaabtu fahanteen oo aad in su-aasha aad fahanteen oo aad jawaabta la imaan doontaan ayaan filayaa tartamayaasha waxaan xusuusinayaa in ay haystaan 1 daqiiqo oo fursad ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا مقعي وعلي عمر محمد وحنا كسو على اسكولك دحاء هوسه يا دكتور محمد إمام waayahay jawaabta جاوبت واحد سنة 4 سنة mar kale ku celi و4 سنة mar saddexaad ha xabsanin جاوبت واحد boqortooyadii Nabi Suleymaan waxay dhisneed 40 sano waayahay jawaabtaadu haddii ay tahay mid sax ah iyo haddii kaleba guddiga ayaan ka sugaynaa waa tahay fuad aad u mahadsan tahay su-aashii labaad oo la weydiiyey iskuulka doctor maxamed iimaan su-aasha u dhaceysay sheeg boqortooyadii nabi suleymaan imise sano ayay dhisneed jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka doctor maxamed iimaan waxay dhaheen waxay dhisneed 40 sano jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waayahay iskuulka dr maxamed iimaan waxaynu leenahay 2 dhibcood waayahay qaybaha hore ee tartanka dabcan waa barbardhac waxaan ku bilownay oo aan ku hormarnay qaybihii hore su-aalaha diiniga ayaan ku hormarnay dugsiga zaynulcaabidiin iyo dr maxamed iimaan ayaa tartamaya caawa oo ah habeenkii koowaad ee tartan aqooneedka iskuullada ku yaala magaalada tan ee Barawe radio Barawe ayaa barnaamijkan soo qaban qaabiyay waxa taabagelinaysa shirkadda Somtel sidoo kale taabagelinta waxa qayb ka ah hay'adda IRF ayaa iyana qayb ka hadaba su'aasha waxaan u gudbaynaa markan waa Soomaaliga su'aasha waxa iska leh dugsiga Zaynulcaabidiin su'aasha soo socota dhagaa u fur zaynulcaabidiin su-aasha soo socota dhagaha u fur marka uu sabuul ku soo baxo ayaa waxaa lagu dhisaa beerta dhexdeeda raar haddaba waa maxay sababta loo dhisayo raarka mar labaad aan kugu celiyo su-aasha zaynulcaabidiin dhagaha u fur marka uu sabuul ku soo baxo ayaa waxaa lagu dhisaa beerta dhexdeeda raar haddaba waa maxay sababta loo dhisayo raarka mar saddexaad ayaan kugu celinaya zaynulcaabidiin su-aasha dhagaha u fur marka uu sabuulku soo baxo ayaa waxa lagu dhisaa beerta dhexdeeda raar haddaba waa maxay sababta loo dhisayo raarka zaynulcaabidiin waxaan filaya inaad su-aasha fahanteen oo aad jawaabta la soo degdegi doontaan insha allah zaynulcaabidiin jawaabta magacaygu waa axmed cali ismaaciil waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe ee sare ee zaynulcaabidiin jawaabta haddaan isku dayo waa sababta loo dhiso raarta waa in laga ilaaliyo xayawaanada sida shimbiraha iyo xayawaanada kala waxyeeleeya ama cuna sabuulka mar kale ku cesho jawaabta sababta loo dhiso raarta waa in laga ilaaliyo xayawaanada sida shimbiraha ama xayawaanada kale ee cuna sabuulka waayahay mar saddexaad ayaan jaan isku siinaynaa zaynulcaabidiin sababta raarta loo dhiso waa in laga ilaaliyo xayawaanada sida shimbiraha ama xayawaanada kale ee waxyeeleeya ama cuna sabuulka
zaynulcaabidiin dabcan su-aasha la weydiiyey waxay u dhacaysay marka uu sabuulku soo baxo ayaa waxaa lagu dhisaa beerta dhexdeeda raar. haddaba waa maxay sababta loo dhisayo raarka? jawaabta ay zaynulcaabidiin ka bixiyeen su-aashaasu haddii ay tahay mid sax ah iyo haddii kale guddiga ayaan u gudbinayaa. waa tahay fuad aad baad u mahadsan tahay. su-aasha la weydiiyey zaynulcaabidiin oo ahayd soomaaliya waxay u dhaceysay sida tan. marka uu sabuulka soo baxo ayaa waxaa laga dhisaa beerta dhexdeeda raar. haddaba waa maxay sababta loo dhisayo raarka? su-aasha sidaasi ayay u dhaceysay. jawaabta ay bixiyeen waxay yidhaahdeen waxaa loo dhisaya raarka waa in shimbirta iyo xoolaha laga ilaaliyo beerta. jawaabta ay bixiyeen iskuulka zaynulcaabidiin waa mid sax ah. dr maxamed iimaan, dugsiga dr maxamed iimaan, su-aasha soo socota dhagaa u fur. weli afka soomaaliga ayaan ku guda jirnaa. dr maxamed iimaan, su-aasha soo socota dhagaa u fur. marka sabuulku bislaado oo ay beeralayda si wada jira u guraan, haddaba waa marka sabuulku uu bislaado oo ay beeralayda si wada jira u guraan, waxaa la isugu geeyaa hal goob. haddaba sheeg maxaa loo yaqaanaa goobtaas? haddaba sheeg maxaa loo yaqaanaa goobtaas? mar labaad aan kugu celiyo su-aasha dugsiga dr maxamed iimaan, su-aasha si fiican u dhegayso. mar labaad aan kugu celiyo. marka sabuulku bislaado oo ay beeralayda si wada jira u guraan, waxaa la isugu geeyaa hal goob. haddaba sheeg maxaa loo yaqaanaa goobtaas? mar saddexaad aan kugu celiyo su-aasha dhagaa u fur. marka sabuulku bislaado oo ay beeralayda si wada jira u guraan, waxaa la isugu geeyaa hal goob. haddaba sheeg maxaa loo yaqaanaa goobtaas? waxaan filaya inaad su-aasha fahamteen oo aad jawaabta la soo degdegi doontaan insha allah. وياي جوابته دكتور محمد إيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وعلي عمر محمد، هنا كسر الدكتور محمد إمام بريمري سكول. جوابت وحلو يقانا طبكا. مركلة كوعشو؟ وحلو يقانا طبكا. وياي مرسد حد كوعشو؟ وحلو يقانا طبكا. وياي بل جوابت هذا هدي أي تايمت صحة يهديك لو حنو قد بنا يا جوديك. واتهاي فؤاد أدود ما سنتهاي سؤال الويديي وإسكول كلهم قاعدوا دكتور محمد إيمان وسؤال الصومالي أهد وحيود عيسى مركو صبور كبسلادو أي بيرلي إذا سيب وذكر أهاي أبران وحل السوق جيا هالجو هذا بشيك محله يقانا قوتاسي جوابت أي كبحيان إسكول كدكتور محمد إيمان ومت صح أنا هين وياهي هدي زين العابدين أي كفائدة سنيان زين العابدين كفائدة سيقو وقت ملها كو لبا سدح أفر شن لح تضبا سديد سقال وياهي واسيقتين زين العابدين جوابته كفائدة مقعي أحمد علي إسماعيل وحان كسعود دكسيه هو سدح سر زين العابدين جوابته دان اسكودية وقوبته شفتانك goobta shafitaanka marka la ku cesho goobta shafitaanka goobta shafitaanka wayahay Zainul Abdiin aad baad u mahadsantihiin haddii jawaabtaas ay tahay mid sax ah iyo haddii kale guddiga waa tahay Fuad aad u mahadsantahay su'aasha hore loo weydiiyey iskuulka Dr. Maxamed Iimaan oo soo hareer martay si ka faa'iideysina waxay u hortaalay iskuulka Zainul Abdiin su'aasha waa Soomaali waxay u dhaceysay markuu sabuulka bislaado ay beeralayda si wada jir ah ay u guraan waxa la isugu geeyaa hal goob haddaba sheeg maxaa loo yaqaanaa goobtaasi si ka faa'iideysi Zainul Abdiin jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn wayahay haddaba labada dhinacba haddii ay su'aashu soo hareer martay yaa laga fadhiyaa marka laga sugayaa dhaqankii halmaan ku halaabi jiray hidihii lumeen soo heli lahaa murtidaanayeen ilka uu lahaa mar haddaa
yaho Gaadiyo qoray haga Gaadiyo qoray haga jahilimo hadaye ho qalinka uhagaji buga ho qalinka uhagaji buga badana ho tilmaanteeda waayahay guddiga ayaan ka sugaynaa markaa haddii labada dhinaca dugsiga zaynulcaabidiin iyo weliba doctor maxamed iimaan ay su-aasha jawaabtii saxda ay soo hareer mareen guddiga haye cismaan waa tahay fuaad shooble aad baad u mahadsan tahay su-aasha waxay ahayd su-aal soomaali ah waxaana la weydiiyey iskuulka doctor maxamed iimaan waxayna soo hareer martay iskuulka zaynulcaabidiin su-aashaasi labadaba kama aysan jawaabin waxay u dhaceysay markuu sabuulka bislaado ay beeralayda si wada jir ah ay u buraan waxaa la isugu geeyaa hal goob haddaba sheeg maxaa loo yaqaanaa goobtaasi labada iskuul tartamaysay caawa way soo hareer martay jawaabta waxaa loogu fadhiyaa waa xaqabtibiraha bulshada ee radio Bravo waxaa goobtaasi loo yaqaanaa karoor mar labada dad idinkugu celiyo waxaa jawaabta loo yaqaanaa karoor mar saddexaad dad idinkugu celiyo waxaa goobtaasi loo yaqaanaa karoor waxaan filayaa inay kaga bogdeen ay meel ku qoran doonaan labada iskuul waayahay aad baad u mahadsan tahay cismaan dabcan jawaabta saxda ah waa karoor labada dhinacba waxaan filayaa inay fahmeen oo ay meel ku qoran doonaan hagaaga soomaaliga ayaa halkaasi inoogu idlaaday markan waxaan geli doonaa qaybta xisaabta ayaan geli doonaa zaynulcaabidiin iyo weliba doctor maxamed iimaan u diyaar garooba dhinacayo xisaabta waayahay isku soo noqod wanaagsan dhagaystayaal weli waxaad la socotaan tartan aqooneedka iskuulada magaalada Bravo ku yaala caawa wajiga koowaad ee tartanka waxaa tartamaya dugsiga doctor maxamed iimaan iyo weliba zaynulcaabidiin ayaa wada tartamaya oo loolan adag u dhaxmaraya caawa qaybta xisaabta ayaan isla soo gaarnay markan ardayda qaybta xisaabta jawaabtu waxaan ka sugeynaa muddo 1 daqiiqo waa 2 daqiiqo maadada xisaabta oo kaliya ayaan siinaynaa fursad 2 daqiiqo ardayda si ay markaasi jaanis fiican ay u helaan zaynulcaabidiin iyo weliba doctor maxamed iimaan su-aasha waxay ku bilaabanaysaa dugsiga zaynulcaabidiin su-aashu waa su-aal xisaab ah zaynulcaabidiin dhagaha u fur zaynulcaabidiin su-aashu waa su-aal xisaab ah fadlan dhagaha u fur waxay ku bilaabanaysaa sida tan culayska haltan ayaa ah 1 kilogram culayska haltan ayaa ah 1 kilogram maxay noqonayaan culayska 943 maroodi haddii uu halkii maroodi culayskiisu la mid yahay haltan mar labaad aan kuugu celiyo su-aasha si fiican u dhageyso culayska haltan ayaa ah 1 kilogram culayska haltan ayaa ah 1 kilogram maxay noqonayaan culayska 943 maroodi maxay noqonayaan culayska 943 maroodi haddii uu halkii maroodi culayskiisu yahay haltan haddii uu halkii maroodi culayskiisu la mid yahay haltan waa markii saddexaad aan idinkugu celinayo su-aasha fadlan dhagaha u fur waa markii saddexaad aan su-aasha idinkugu celinayo dhagaha u fur culayska haltan ayaa ah 1 kilogram culayska haltan ayaa ah 1 kilogram maxay noqonayaan culayska 943 maroodi maxay noqonayaan culayska 943 maroodi haddii uu halkii maroodi culayskiisu la mid yahay haltan haddii uu halkii maroodi culayskiisu la mid yahay haltan
zaynul caabidiin waxaan filaya inaad garateen su-aashaasi oo aad jawaabta la soo degdegi doontaan. yahay zaynul caabidiin waqtigu waa uu idinka dhacay fadlan jawaabta haddii aad la soo degdegi kartaan. zaynul caabidiin jawaabta. mikrofon kusoo dhawo. تعالى وبركاته. مجيء عبد القادر محمد عمر كنا سعود الدكسية هوسة دحي سراء زين العابدين. هدي جوابت أنا اسكت ده واحد نقول نسا سجال كون سجال بقول أفرتني 6 كيلوغرام. مركله كويسو. سجال بقول أفرتني 6 كيلوغرام. إزدجي ترتيب أنا قلنا أنكو فهمنا أدينا ترتيب كذا إزدجي. ها مركله كويس جوابته. سجال بقول أفرتني 6 كيلوغرام. 943 oo kilogram wax kale ma ku dhiman way Zaynul Caabidiin aad baad u mahadsantihiin haddaba jawaabtu haddii ay tahay mid sax ah iyo haddii kaleba guddiga ayaan siinaynaa markaan haye Ismaan waa tahay Fuad aad baad u mahadsantahay su'aasha waa su'aal xisaab ah waxay u dhaceysay sida tan oo la weydiiyay iskuulka Dr. Maxamed Iimaan culayska haltan ayaa ah 1 kilogram maxay noqonayaan culayska 943 maroodi haddii uu halkii maroodi culayskiisu la mid yahay haltan jawaabta ay ka bixiyeen inkastoo uu ardaygaasi wax yar uu show ku jiray saacate laakiin jawaabtu uu ka bixiyay waxay u dhaceysay sida tan 943 kilogram jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah العابدين لبا دبعود 943 كيلوغرام وجوابته صحيحة. أنا دكتور محمد إيمان سؤال دكتور فر دكتور محمد إيمان دكسيغا دكتور محمد إيمان سؤال شو حيودا عيسى سيدة وسؤال حسابه دقاه فر أن بير لغو بيري موس أيا أصميسان قاب لبجبارنا بير لغو بيري موس أيا أصميسان قاب لبجبارنا haddii dhererka dhinacyadeedu uu yahay 100 mitir waa maxay bedka beertu mar labaad aan kuugu celiyo su'aasha dugsiga Dr. Maxamed Iimaan su'aasha dhagaha u fur waa su'aal xisaab ah beer lagu beeray moos ayaa u samaysan qaab laba jibaarane ah haddii dhererka dhinacyadeedu uu yahay 100 mitir waa maxay bedka beertu mar saddexaad aan idinkugu celiyo su'aasha mar saddexaad su'aashaan idinkugu celiyo dhagaha u fur dugsiga Dr. Maxamed Iimaan beer lagu beeray moos ayaa u samaysan qaab laba jibaarane ah beer lagu beeray moos ayaa u samaysan qaab laba jibaarane ah haddii dhererka dhinacyadeedu uu yahay 100 mitir haddii dhererka dhinacyadeedu uu yahay 100 mitir waa maxay bedka beertu waa maxay bedka beertu hagaaga dugsiga Dr. Maxamed Iimaan waxaan filayaa inaad garateen su'aashaasi oo aad ka jawaabi doontaan insha Allah
waayahay dr maxamed iimaan jawaabta dr maxamed iimaan jawaabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعمر مجي محمد وكسعودة دوكسيغا هوسي دحي دكتور محمد إمام جوابته دا اسكو دايو والله بخل جبارن marka la ku cesho jawaabta والله بخل جبارن mar saddexaad ayaan jaan isku siinayna ku cesho jawaabta والله بخل جبارن waayahay aad baad u mahadsan tahay bal haddii jawaabtaasi ay tahay mid saxa iyo haddii kaleba waxaan ku duubayaa waan u wareejinayaa guddiga waa tahay fuad aad baad u mahadsan tahay su-aashii la weydiiyey iskoolka doctor maxamed iimaan oo u dhaceysay waa su-aal xisaab ayay ahayd su-aasha waxay u dhaceysay beer lagu beeray moos ayaa u samaysan qaab laba jabaaran ah haddii dhirirku dhinaceedu yahay 100 waa maxay beedku beertu jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka doctor maxamed iimaan waa mid sax aan ahayn waayahay dr maxamed iimaan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aanan ahayn zaynul caabidiin jawaabta haddii aad ka faa'iidaysanaysaan waqti ma laha ka faa'iidaysigu 1 2 3 4 5 6 7 jawaabta magacaygu waa axmed ali ismaaciil waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe ee sare ee zaynul caabidiin jawaabta haddaan isku dayo waa 400 oo isku wareeg mar kale ku cesho jawaabtu waa 400 oo isku wareeg mar saddexaad 400 waayahay haddii jawaabtaasi ay tahay mid saxa iyo haddii kale guddiga waa tahay fuad aad baad u mahadsan tahay su-aasha oo hore loo weydiiyey iskuulka doctor maxamed iimaan oo aysan ka jawaabin oo soo hareer martay si ka faa'iidaysana waxay u hortaalay iskuulka zaynul caabidiin jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn waayahay haddaba labada tartame ee dugsiga maxamed iimaan iyo weliba dugsiga hoose dhexe sare ee zaynul caabidiin haddii ay jawaabtu soo hareer martay ayaa looga fadhiyaa jawaabta dhaqankii halmaan ku hallaabi jiray hidihii lumeen soo heli lahaa murtidaanayeen ilka uu lahaa mar haddaanu helay afki hooyahu naligaadiyo oo qoray hagaag naligaadiyo oo qoray hagaag jaahilnimo hadhaye jaahilnimo hadhaye hoo qalinka ku hagaaji buuga hoo qalinka ku hagaaji buuga bacdana hoo tilmaanteeda waayahay jawaabtu waxaa laga sugaya guddiga bal haye cismaan jawaabta waa tahay fuad aad baad u mahadsan tahay su-aasha hore loo weydiiyey iskuulka doctor maxamed iimaan aysan ay ka jawaabin asaacatee zaynul caabidiin ayay soo horeer martay wayna ka faa'iidaysan waayeen jawaabta waa 10,000 oo laba jabaaran mar kale haddii aan ku celiyo su-aasha oo ahayd beer lagu beeray moos ayaa u samaysan qaab laba jabaaran ah haddii dhirirku dhinaceedu uu yahay 100,000 waa maxay bedka beertu jawaabtu waa 10,000 oo laba jabaaran 10,000 oo mitir oo laba jabaaran waxaan filayaa inay garteen meel ku qoran doonaan waayahay aad baad u mahadsan tahay cismaan dabcan tartan aqooneedka ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaasha aynu jecelnahay oo qaybaha dhexe ee tartanka ayaan isla soo gaarnay markaan waxaan qaadan doonaa qadar nasashaha walaal idris waxaan wacayaa dalkii oo baryaha la hadlay khadka ka xumaa filayaa way soo gelinba maanteen halow haa walaal waa hodane halow ka waran dadkii iyo dalkii walaal walaal dhammaantaya waan fiicannahay roobkina wuu noo daayay walaal aad iyo aad iminka xagad joogtaa walaal walaal waxaan ku sii socdaa miyigii waddankii waa barwaaqo waanan caana doonanaya walaalo miyigiiya alla dadka igu wada salaan insha allah waan idin iman doonaa waanan kugu salaami doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo walaal magaalada jooga waad la xiriir kari weynay kuwa miyiga joogay maxaad kula hadlaysay oo miyaanad ogeyn waxaan isticmaalaa adeega casriga ee Somtel Reach Me
daahfurka adeegga somtel riijmi lacag badani ma kaaga baxdaa markaad waddankii la hadlayso shirkadda somtel ayaa idiin diyaarisay xalkii kala soo deg google play ama abstoreka moobilkaaga abka inisafos riijmi isdiiwaangeli oo bixi $14.99 oo keliya kadibna ku raaxayso hadal aan xaddi lahayn bisha oo dhan sidoo kale macmiilka waddanka gudihiisa jooga wuxuu la hadli karaa qaraabadiisa dibadda ku nool ee isticmaasha adeegan isagoo loo xisaabinayo inuu la hadlayo qof waddanka jooga haddaba macmiil la wadaag adeegan eheladaada ee asxaabtaada ku kala nool daafaha dunida qaybihii dhexe ee tartan aqooneedka radio Barawa ayaan isla soo gaarnay dhageystayaal dadka kale ee ku nool daafaha dunidana waxay inaga daawan karaan muuqaal baahiyaha radio Barawa ayay inaga daawan karaan hagaaga dhageystayaal maadaama qaybaha dhexe aan isla soo gaarnay waxaan jeclahay inaan u yeero guddiga tartanka balse ay inoogu sheegaan halka ay kala marayaan dugsiga hoose dhexe sare ee Zainul Abidin iyo waliba dugsiga hoose dhexe Dr. Maxamed Iimaan guddiga ayaan u yeeraya bal natiijooyinka halka ay dhibcuhu ay kala marayaan si ay inoogu sheegaan raxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan waxaan ugu mahadcelinayaa tartamayaasha kasoo qaybgalay ee tartankan oo kala ah iskuulka Zainul Abidin iyo iskuulka Dr. Maxamed Imaam runtii oo ay muujiyeen dadaalkooda iyo intaba sidoo kale tartanka wuxuu u socday si aad u qurux badan oo fiican sidii loo agaasimay sidii loo rabay intaba si qurux badan oo maasha Allah ay u socdaa sidoo kale hadda waxaan jeclaan lahaa maadaama uu tartanku marayo qaybta dhexe waxaan si jeclaan lahaa in aan sheego sida dhibcooyinka ay u kala marayaan maasha Allah sidoo kale su'aalaha la isweydiiyey waa 6 su'aal 3 su'aal waxaa la weydiiyey iskuulka Zainul Abidin iyo 3 su'aal kalena waxaa la weydiiyey iskuulka Dr. Maxamed Imaam halka 3 su'aal oo la weydiiyey iskuulka Zainul Abidin 3 su'aalba si sax ay uga jawaabeen sidoo kale iskuulka Dr. Maxamed Imaamna 3 su'aal oo la weydiiyey hal su'aal kamida ay ka jawaabeen 2 su'aal kalena ay hareer martay sidoo kale 2 su'aal ay hareer martay si ka faa'iideysi waxay ku soo aaday iskuulka Zainul Abidin inkastoo oo ay ka jawaab waayeen sidoo kale natiijada hadda waxay u kala maraysaa 6 dhibcood oo ay leedahay iskuulka Zainul Abidin iyo 2 dhibcood iskuulka Dr. Maxamed Imaam sidoo kale hadda insha Allah waxaan si guda gali doonaa tartankii qaybaha kale insha Allah duulaahadmo wayahay aad baad u mahadsantahay guddiga aad buu u mahadsan yahay maadaama ay noo soo gudbiyeen natiijooyinka iyo halka ay kala marayaan labada tartame ee dugsiga hoose dhexe sare ee Zainul Abidin iyo waliba dugsiga Dr. Maxamed Iimaan dabcan labada iskuulba ma kala yareystaan oo maanta ama caawa niraahday caawa cusbana waxaad u malaysaa labada iskuulba inaysan kala sharyareen labada iskuulba caawa waxaad moodaa in ay usoo diyaar garoobeen tartankan dabcan ciyaar waa gelin dambaa la yidhi ciyaartu weli ma dhammaanin tartanku weli ma dhammaanin ciyaarna waa gelin dambaa la yidhi waan arki doonaa Dr. Maxamed Iimaan waxa ay la imaan doonaan iyo waxa ay la soo bixi doonaan waan arki doonaa Zainul Abidin bal iyaguna waan arki doonaa haddii ay tiiro dhigi doonaan iyo haddii ay sii socon doonaan wayahay tartanka qaybaha inooga harayaan sii gudagalaynaa dhagaha u fur Zainul Abidin iyo waliba tartamayaasha kale ee Dr. Maxamed Iimaan dib ayaan isugu soo laabanay markan su'aashu waa su'aal cilmiga bulshada Zainul Abidin su'aasha dhagaha u fur idinka ayaa iska leh Zainul Abidin su'aasha dhagaha u fur idinka ayaa iska leh su'aashu waa su'aal cilmiga bulshada haddaba dooro jawaabta saxda ah haddaba dooro jawaabta saxda ah Zainul Abidin dhagaha u fur su'aasha idinka ayaa iska leh haddaba dooro jawaabta saxda ah gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka kooban yahay gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka kooban yahay ba 8 degmo ta 7 degmo ja 9 degmo mar kale aan kugu celiyo haddaba dooro jawaabta saxda ah gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka kooban yahay ba 8 degmo ta 7 degmo ja 9 degmo mar saddexaad aan idinkugu celiyo su'aasha dhagaha u fur dugsiga Zainul Abidin jawaabta saxda ah dooro gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka kooban yahay
ba 8 degmo ta 7 degmo ja 9 degmo haddaba jawaabta zaynul caabidiin su-aashan waqti ma laha 1 2 3 4 5 6 7 8 waayahay zaynul caabidiin jawaabta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وعبد القادر محمد عمر كنا سعود دكسي وسط دحي سراي زين العابدين هدي أن جواد اسكو دي waxay noqon doontaa 8 degmo marka la ku cisho 8 degmo ba ta ija haysataa kee dooratay jawaabta marka la ku cisho 8 degmo way aad baad u mahadsan tahay hagaaga zaynul caabidiin jawaabta ay bixiyeen haddii ay tahay mid saxa iyo haddii kaleba guddiga ayaan markaasi ka sugaynaa jawaabta saxda ahayd haye cismaan tahay fuad aad baad u mahadsan tahay su-aasha waa cilmiga bulshada waxaana la weydiiyey iskuulka hoose dhexe sare ee zaynul caabidiin waxay u dhaceysay su-aal dooro jawaabta saxda ah gobolkani shabeellaha hoose waxa uu ka kooban yahay ba 8 degmo ta 7 degmo ja 9 degmo jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka zaynul caabidiin waa jawaab sax ah oo waa 8 degmo waayahay zaynul caabidiin laba dhibcood su-aasha soo socota waxaa iskale dugsiga Dr. Maxamed Iimaan su-aasha dhagaa u fur haddaba dooro jawaabta saxda ah Dr. Maxamed Iimaan su-aasha dhagaa u fur dooro jawaabta saxda ah gobolka shabeellaha hoose waxa uu ku yaalaa ba koonfurta Soomaaliya ta bartamaha Soomaaliya ja waqooyiga Soomaaliya haddaba dooro jawaabta saxda ah Dr. Maxamed Iimaan gobolka shabeellaha hoose waxa uu ku yaalaa ba koonfurta Soomaaliya ta bartamaha Soomaaliya ja waqooyiga Soomaaliya mar saddexaad aan kugu celiyo Dr. Maxamed Iimaan mar saddexaad aan idinkugu celiyo su-aasha si fiican u dhagaysta gobolka shabeellaha hoose waxa uu ku yaalaa ba koonfurta Soomaaliya ta bartamaha Soomaaliya ja waqooyiga Soomaaliya haddaba su-aasha waqti ma laha Dr. Maxamed Iimaan jawaabta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hagaag Dr. Maxamed Iimaan jawaabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد أبو بكر عبد الرحمن وكسر سكول كدكتور محمد إمام جوابته دانسكو داي وابا كونفورتا لما يصير جوابته جوابته دانسكو دايو كونفورتا جوابته دانسكو دايو كوعلي اسم الله ويكاد مات جوابته دانسكو عبسنين جوابته دانسكو دايو وكونفورتا Soomaaliya waayahay aad baad u mahadsan tahay haddaba haddii jawaabtaasu ay tahay mid sax ah iyo haddii kaleba guddiga ayaan ka sugaynaa waa tahay fuad aad baad u mahadsan tahay su-aasha la weydiiyey iskuulka Dr. Maxamed Iimaan oo u dhaceysay gobolkani shabeellaha hoose waxa uu ku yaalaa ba koonfurta Soomaaliya ta bartamaha Soomaaliya ja waqooyiga Soomaaliya jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka Dr. Maxamed Iimaan ay ku sheegeen ba koonfurta Soomaaliya waa jawaab sax ah laba dhibcood Dr. Maxamed Iimaan waayahay cismaan waxaad moodaa Dr. Maxamed Iimaan iyaga laftirkooda inay hadda ciyaarta gelin dambe hadda ayaan sheegay ciyaarta waa gelin dambe waayahay marmar adoo saddex lagugu leeyahay 7 geenaysaa waayahay Dr. Maxamed Iimaan iyo waxaa tartankan caawa u dhaxeeya dugsiga hoose dhexe sare zaynul caabidiin ayuu u dhaxeeya tartan aqooneedka caawa ayuu wejigiisa koowaad kow inoo yahay waxaana loolanka ugu horeeya u dhexmaraya dugsiga hoose dhexe Dr. Maxamed Iimaan iyo weliba zaynul caabidiin haddaba markan qaybaha kale ee tartanka inoogu harayaan sii guda galaynaa su-aasha soo socota waa su-aal saynis ah su-aasha soo socota waa su-aal saynis ah waxaa iskale zaynul caabidiin dugsiga zaynul caabidiin su-aasha dhagaa u fur su-aashu waa su-aal saynis ah waa maxay
qabashada iyo kaydinta biyaha mar kale aan idinkugu celiyo su-aasha dhagaha u fursan lacabdeen waa maxay qabashada iyo kaydinta biyaha mar saddexaad aan idinkugu celiyo su-aasha dugsiga zaynul caabideen waa maxay qabashada iyo kaydinta biyaha waxaan filaya inaad garataan su-aashaasi oo aad jawaabta la soo degdegi doontaan insha allah jawaabta Zayn al-Abidin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Muuse Cumar oo ka socda dugsiga hoose dhexe ee sare ee Zaynul Caabidiin. Qabashada biyaha roobka waa ururinta iyo keedinta biyaha roobka si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid. Mar kale jawaabta ku cesho. Qabashada biyaha roobka waa ururinta iyo keedinta biyaha roobka si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid. Qabashada biyaha roobka waa ururinta iyo keedinta biyaha roobka si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid. Haye. Isku day jawaabta oo dhameystiran. Qabashada biyaha roobka waa ururinta iyo keedinta biyaha roobka si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid. Mar saddexaad ku cesho. Waa jaaniskaagii ugu dambeeyay. Qabashada biyaha roobka waa ururinta iyo keedinta biyaha roobka si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid. Si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid. waayahay Zaynul Caabidiin aad baad u mahadsantihiin. waayahay jawaabtaasu haddii ay tahay mid sax iyo haddii kaleba guddiga ayaa looga fadhiyaa. waa tahay Fuad aad baad u mahadsan tahay. su-aasha waa su-aal saynis ah waxayna u dhaceysay sida tan waa maxay qabashada iyo keedinta biyaha waxaana la weydiiyey iskuulka Zaynul Caabidiin ayaa la weydiiyey. sida hore aan u sheegnaba iskuul walba waxaa lagu wargeliyey in su-aasha la weydiiyo ayadoo jawaabta dhammaystiran inay ka jawaabaan. waa tahay su-aasha waxay u dhaceysay sida tan waa maxay qabashada iyo keedinta biyaha jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn. waayahay Dr. Maxamed Iimaan haddii aad ka faa'iideysanaysaan. Dr. Maxamed Iimaan haddii aad ka faa'iideysanaysaan. ka faa'iideysigu waqti ma laha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dr. Maxamed Iimaan iyana waa ay ka dhacday jawaabta ka faa'iideysigu waqti ma lahan. waa hagaag haddii labada dhinac ay soo hareer martayba guddiga dhaqankii halmaan ku hallaabi jiray midihii lumeen soo heli lahaa murtidaan hayeen ilka uu lahaa mar haddaanu helay afki hooyahu naligaadiyo oo qoray hagaag naligaadiyo oo qoray hagaag jaahilnimo hadhaye jaahilnimo hadhaye hoo qalinka ku hagaaji buuga hoo qalinka ku hagaaji buuga bacdana hoo tilmaanteeda waayahay bal jawaabta saxda ahayd waxaan ka sugaynaa guddiga ayaan ka sugaynaa haye Cismaan. waa tahay Fuad aad baad u mahadsan tahay. su-aasha waa su-aal saynis aheed waxaana la weydiiyey waa iskuulka hoose dhexe sare ee Zaynul Caabidiin waxayna u dhaceysay waa maxay qabashada iyo keedinta biyaha jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid sax ah inkastoo iyagana soo hormartay iskuulka Dr. Maxamed Iimaan. jawaabta Dr. Maxamed Iimaan dabcan waqtiga ka dhacay ka faa'iideysigu waqti ma laha hore loogu sheegay. jawaabta qabashada waa su-aasha waxay u dhaceysay waa maxay qabashada iyo keedinta biyaha jawaabta saxda ah oo dhammaystiran waxa weeye qabashada biyaha roobka waa ururinta iyo keedinta biyaha roobka si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid halkii biyaha roobka laga ogolaan lahaa inay iska dareeraan ama iska socdaan. dabcan mar kale ugu celiyo si ay meel ugu qortaan su-aasha u dhaceysay sida tan waa maxay qabashada iyo keedinta biyaha
jawaabta saxda ah oo dhammaystiran waxay u dhicaysaa qabashada iyo biyaha roobka waa ururinta iyo keedinta biyaha roobka si dib loogu isticmaalo goobta aad joogtid halkii biyaha roobka lagu ogolaan lahaa inay iska socdaan ama inay iska dareeraan waayahay dabcan zaynulcaabidiin jawaabtu waa ay keeneen laakiin shuruudaha waxaa ku xusan in jawaabta la dhammaystiro ay waajib tahay yacni jawaabtu inaad dhammaystirto ayay ahayd maadaama jawaabtaadu ay haaf keliya ahayd sidaa daraaddeedii waa jawaab qaldan waayahay su-aasha soo socota waxaa iskale dugsiga dr maxamed iimaan dr maxamed iimaan su-aasha dhagaa u fur dr maxamed iimaan su-aasha dhagaa u fur waa isla su-aal saynis ah xaggee ayay ka yimaadaan waa xaggee ayay ka yimaadeen biyaha qulqulaya dhulka dushiisa mar labaadaan kugu celiyo su-aasha xaggee ayay ka yimaadeen biyaha qulqulaya dhulka dushiisa mar saddexaad aan kugu celiyo dugsiga dr maxamed iimaan xaggee ayay ka yimaadeen biyaha qulqulaya dhulka dushiisa waxaan filayaa su-aasha inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah fursadda aad haysataanna waa hal daqiiqo oo keliya عليكم ورحمة الله وبركاته مجاي وعمر مية محمد أو كسعداء دكسيا هو سر حي دكتور محمد إمام جوابت هذا اسكت ده وحيت هاي وحكي مادان رابك يا وبيدا يا بيا لك هو سيس كسبر خدا مركل كعلي رابك وبيدا يا بيا لك هو سيس كسبر خدا مرس دحت وعيش جوابته رابك وبيدا يا بيا لك هو سيس كسبر خدا waayahay aad baad u mahadsan tahay haddii jawaabtu ay tahay mid saxa iyo haddii kale guddiga ayaan ka sugayna haya cismaan waa tahay fuad aad baad u mahadsan tahay su-aasha la weydiiyey iskuulka doctor maxamed iimaan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn zaynulcaabidiin haddii aad ka faa'iidaysanaysaan ka faa'iidaysigu waqti ma laha 1 2 3 4 5 6 7 waayahay jawaabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu وعليكم السلام magacay waa maxamed muuse cumar oo ka socda dugsiga hoose dhexe ee sare zaynulcaabidiin biyaha dhulka korkiisa qulqulay waxa ay ka yimaadaan biyaha roobka ama barafka dhalaalay iyo ilo kale kuwaasoo dul socda dhulka waana qayb ka mid ah meertada biyaha mar kale ku cesho biyaha roobka ee dul socda dhulka waxa ay ka yimaadaan biyaha roobka isdaji tartiib haya hadda ku celi jawaabta waxa ay ka yimaadaan biyaha roobka ama barafka dhalaalay ama ilo kale kuwaasoo dul socda dhulka waana qayb ka mid ah meertada biyaha waayahay aad baad u mahadsan tahay zaynulcaabidiin haddii jawaabtu ay tahay mid saxa guddiga waa tahay fuad aad baad u mahadsan tahay su-aasha la weydiiyey iskuulka doctor maxamed iimaan soo hareer martay si ka faa'iidaysina waxay u hortaalay waa iskuulka zaynulcaabidiin jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn yihiin iskuulka waa zaynulcaabidiin su-aashii la weydiiyey oo ahayd xaggee ka yimaadaan biyaha qulqulaya dhulka dushiisa inkastoo qaybta dhexda uu ka qabtay waxaa la isla gartay su-aasha ay ka bixiyeen inay tahay mid sax ah waayahay zaynulcaabidiin jawaabta ay ka bixiyeen su-aashaasi waa mid sax ah si sax ayay uga faa'iidaysteen waana jawaab saxa kan ay bixiyeen sidaa daraaddeed ka faa'iidaysigu waa hal dhibac oo keliya
zaynul caabidiin jawaabtaasi waa ay saxeen inkastoo guddiga markii hore uu qalday laakiin hadda waxaa la isla gartay in jawaabtu ay tahay mid saxa sidaa darteed zaynul caabidiin hal dhibcood ayay leeyihiin maadaama ay ka faa'iidaysteen waayahay qaybaha dambe ee tartan aqooneedka radio Barawa ayaan isla soo gaarnay tartanka waxaa taabagelinaya shirkadda isgaarsiinta Somtel sidoo kale taabagelinta waxaa qayb ka hay'adda IRF ayaa qayb ka radio Barawa ayaa tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan iska leh dabcan waxay si toos ah dadka daafaha dunida ku nool inagala socon karaan muuqaal baahiyaha radio Barawa sidoo kalena dhageystayaasheenu tuulooyinka ku geedama Barawa iyo Barawaba si toos ah ay radio Barawa inaga maqli karaan oo ay tartankan kala socon doonaan qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay tartan aqooneedka radio Barawa waagaag su'aasha soo socota waxa iska leh dugsiga Zaynul Caabidiin su'aasha dhagaa u fur waa aqoon guud waa qaybtii ugu dambeysay ee tartanka caawa su'aasha soo socota waa aqoon guud Zaynul Caabidiin su'aasha dhagaa u fur sheeg magaca caasimadda dalka Masar mar labaad aan kugu celiyo sheeg magaca caasimadda dalka Masar mar saddexaad aan kugu celiyo sheeg magaca caasimadda dalka Masar waxaan filayaa inaad garateen jawaabta oo aad la soo degdegi doontaan insha Allah ويا زين العابدين جوابته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الرحمن عبد القادر كان صعد الدكسي هو صدح السرائي زين العابدين جوابته دا اسكو ضيع عاصمة مصر وقاهرة. مركلة كوعشو؟ عاصمة مصر وقاهرة. مرسدحات وقاهرة. أدو ما تسنتاي. هكا قد جوابته سؤالي أي تايمت صح أيها هديك لقديك. واتاي فؤاد أدو ما تسنتاي سؤال شو أقول جود وحين أقول عيسى سيدة sheeg magaca caasimadda dalka Masaarida ama Masar jawaabta saxda ah ay ka bixiyeen waa Qaahira waana jawaab sax ah ويا زين العابدين لبا دبعود هاجاك ان سؤال soo socota waxa iska leh iskuulka Dr. Maxamed Iimaan su'aasha dhagaa u fur Maxamed Iimaan su'aashu waa su'aal aqoon guud ah sheeg magaala madaxda ama caasimadda wadanka Tanzania dugsiga Dr. Maxamed Iimaan su'aasha dhagaa u fur sheeg caasimadda wadanka Tanzania mar saddexaad aan kugu celiyo sheeg caasimadda ama magaala madaxda wadanka Tanzania waxaan filayaa inaad garataan su'aasha oo aad ka jawaabi doontaan dugsiga Dr. Maxamed Iimaan magacaygu waa Deeqo Maxamed Bashiir waxa aan ka socdaa gruubka Dr. Maxamed Imaam hadii aan isku dayo jawaabta waa Dodoma mar kale ku cesho Dodoma mar saddexaad ku cesho Dodoma way hay aad baad u maadsan tahay hagaaga ana jawaabtu ay bixiyeen Dr. Maxamed Iimaan hadii ay tahay mid sax ah iyo hadii kaleba واتاي فؤاد أدب مهندسان تهاي اسكولكا دكتور محمد إيمان سؤال la weydiiyay waa aqoon guud waxayna u dhaceysay sheeg magaalada madaxda wadanka Tanzania jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn wayahay hadii Zaynul Caabidiin ay ka faa'iideysanayso su'aashaasi Zaynul Caabidiin jawaabta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واسقت وش هو كوكو دحربتي ننسكت من ولا ليري ويا هي جوابته السلام عليكم واحد سؤال عد هي وسودو فديسه انت ترتيب magacaaga ku bilow dugsiga ka socotid kadibna jawaabta
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجيء أود من السلام واسمع عبد القادر محمد كنص على الدكتور زين العابدين وصد حسرة زين العابدين. جوابت دانس كده ودار السلام. مركل كويشو. جوابت دانس كده ودار السلام. مرسدحات. ودار السلام. دار السلام. وياي أنا سؤال شو حي صار المرتاي دوكسيجا دكتور محمد إيمان سكة فايدة أي وقتك زين العابدين حد به هدي جوابته أي تايمت صح إيه هدي كله جودي جايين كسوجينا. واتاي فؤاد aad baad u mahadsan tahay su-aashu waa aqoon guud waxaana la weydiiyey markii ugu horeysay waa iskuulka Dr. Maxamed Imaan waxayna u dhaceysay sheeg magaalo madaxda wadanka Tanzania jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad hasaate ka faa'iideysi waxa iminka u imaatay iskuulka Zainul Abidin jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana Dar es Salaam وهجاجة زين العابدين كفايدتك وعكوها شين هل العود عاصمة دولة تنزانيا ودار السلام هجاج نجسيالا يو داود يالي دلكين با ترتنا قناة كعاوة أنا وحاجودن بزقيب تاسي أقون تجود iyo su'aashaasi sida kafaa'iideysiga ay ugu tagtay dugsiga Zainul Abidin halka dhibcana ay ku heleen tartanka guud ayaa intaasi inoogu idil markan waxaan sugaynaa bal dhibcaha iyo natiijada guud waxaan ka sugaynaa guddiga tartan aqooneedka Radio Barawa ayaan ka sugaynaa bal natiijada waayahay guddiga ayaa iminka stuudiyaha u soo talaabay bal guddiga waxaan ka sugaynaa natiijada labada iskuul ee halkan ku tartamaysa caawa oo kala ahaa dugsiga hoose dhexe sare Zainul Abidin iyo waliba dugsiga hoose dhexe Dr. Maxamed Imaan guddiga ayaan ka sugaynaa natiijada marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh runtii cawadu ay tahay 11 bisha Ramadaan oo noo bilaabmay tartan aqooneedkii dugsiyada degmada Baraawe waxaa maanta isla ciyaarayay dugsiga Zainul Abidin iyo Dr. Maxamed Imaam sidoo kale tartanka si qurux badan oo maasha Allah inoo bilaabmay ayaa hadda inoo gabagaboobay tartankii sidoo kale waxaan hadda rabaa inaan ku dhawaaqo natiijada sida ay u kala maraysa insha Allah sidoo kale waxaan ku bilaabaynaa iskuulka Zainul Abidin oo natiijo ahaan oo ay keentay 12 dhibcood sidoo kale halka iskuulka Dr. Maxamed Imaam oo ay keentay 4 dhibcood marka hadda guusha waxay raacday iskuulka Zainul Abidin sidoo kale waxaan rabaa in aan u mahad celiyo dadka ka soo qaybgalayaasha tartanka iyo sidoo kale macallimiinta sidoo kale wariyaasheena oo sida ugu quruxda badan oo ay barnaamijka noo agaasimay oo sidoo kale si qurux badanna waa inoo dhamaatay maasha Allah sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo iskuulka Zainul Abidin oo ay cawad ay ku guuleysatay tartanka sidoo kale iskuulka Dr. Maxamed Imaam ayadana ay dadaalkeedii muujisay runtii laakiin laba qofood iyo sidoo kale laba kooxood ee markay tartamaan mid bay guusha raacdaa sidoo kale fursado badan ay jirto oo ay isku muujin doonaan ay iskuna adkeen doonaan insha Allah sidoo kale guddiga marka waxaan ka sugaynaa bal kooxda labada iskuul ee habeen dambe tartami doona sidoo kale habeen dambe waxaa tartami doono labada iskuul ee kala ah Salaahuddin School iyo sidoo kale iskuulka Albamba Light waa iskuulka Salaahuddin iyo Albamba Light waayahay labadaas iskuul ayaa habeen dambe hadduu ilaahay idmo tartami doona oo tartanka iskale dabcan iyaguna wayna maqlayaan sidaan filayno sida shuruudaha inoogu xusanba waxaan filayaa in waqtiga la ilaalin doono tartamayaashuna ay kasoo qaybgeli doonaan waqtiga ugu habboon ay ku imaan doonaan ayaan filaynaa insha Allah sida guddigu ay ka dhawaajiyeen ba tartankan caawa dugsiga Zainul Abidin iyo waliba Dr. Maxamed Imaan waxa 12 dhibcood ay guushu ku raacday dugsiga Zainul Abidin halka 4 dhibcood ay la imaadeen Dr. Maxamed Imaan aad baad u mahadsantihiin tartamayaasha sida quruxda badan u soo bandhigay aqoontoodu iyo waxay ka dhaxleen dugsigoodu inta kuma eka kulankan wareeg kale ayaa dabcan idin haray oo aan filayo laba wareeg kale idin haray Dr. Maxamed Imaan labadaas wareeg ayaan filaya marka in idinkuna aad ku soo bixi doontaan insha Allah Zainul Abidin mar kale ayaa laga yaabaa inaad iska hortimaadiin oo aad ka arsan doontaan Zainul Abidin waan u hambalyeynaya caawa guusha iyaga ee dhankoodu raacday Cismaan maxaad ku dalsanay واتاي فؤاد أدود مهتسنتهاي لبدي إسكول بقى قروح البدن برنامج كا وقع قاتين تساقونات كا بيش بركيسن رمضان أدبن وما نقيا يقاب كعنشحة برنامج كا إلاليين
aad bay u mahadsan yihiin waxaad moodaa labaduba inay dadaal wada muujiyeen labadaba waxaa la yidhi laba dhagax haddii isku dhacdo mid ayaa jiro inkastoo guulna aad ku tashanaysid guul darana aad ku tashan kartid laakiin labadaba dadaalka ay sameeyeen aad bay u mahadsan yihiin qaabka quruxda badan ee barnaamijka ugu qayb waayahay cismaan aad baad u mahadsan tahay markan waxaan u yeerayaa macalimiinta kala hogaaminaysa labada iskuul ayaan u yeerayaa bal iyaguna dhankooda inay ka hadlaan aragtidooda ku aadan tartan aqooneedkan ayaan u yeerayaa macalimiinta ayaan u yeerayaa oona stuudiyaha kusoo dhaweynayaa si iyaguna ay uga hadlaan dareenkooda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الله سبحانه وتعالى مهد إسكاله ثانيا راديو براي برنامج كان سورتقي لي إني قبطان سيدوك وحان مهد علينا برنامج جدك تابقي ليس هيئة IRF يو صمتل sidoo kale waxaan u mahad celinaa dugsiga maxamed imaam oo caawana la tartameen sidoo kale ay muujiyeen wanaag anshax sidoo kale ay muujiyeen aqoon sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ardayda ka socotay dugsiga Zaynul Abdiin ani aan maamule ka dadaalka ay muujiyeen sidoo kale waxaan leenahay guusha laba qofood kamada qosliso waa nasiibkiina ku hesheen waa maasantiin aad iyo aad kooxda kale ayagana dadaalkooda ay muujiyeen laakiin sida hor mahmaa Soomaaliya u dhahaday bagari laba qofood kamada qosliso hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam aad baad u mahadsantahay ustaad waxaan u yeerayaa markaan dhinaca kale Dr. Maxamed Imaan iskuulka Dr. Maxamed Imaan ustaadka ama macalinka hogaaminaya ayaan u yeerayaa bal isaguna dhankiisa dareenkiisa si uu uga hadlo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنيقو كوه الله مقع معمولها دكسي هوسد دكتور محمد إمام ترتنكي أن ودقلنا أنك إيو دكسي زين العابدين دكسي هوسد سري زين العابدين ترتنكينا ترتن آد وناكسن أو في أن أو دقن أو نظام أهي دعدي haddaba waxa way labada qofood markay tartamaan midba guusha raacay hadda anaga maanta waxa way guusheena waxa qaadatay Dr. Zaynul Abidin aad baan u mahadinayaa guddiga tartanka macnaha raadi Muqdisho raadi Baraawe iyo dhammaan dadka ka shaqeynaya oo dhan wariyaasha iyo wixii oo dhan aad baan celinaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi waayahay aad baad u mahadsantahay tartankii ayaa intaasi inoogu idil Zaynul Abidin ayaa ay guushu raacday caawa laba wareeg ayaa u haray Dr. Maxamed Imaan iyaguna waxaan filayaa in ay dib uga soo kaban doonaan oo iyaguna guusha dhankoodu ay ahaan doonto wareegyada soo socda ardayda aad baan uga mahad celinayaa sida quruxda badan ay barnaamijka uga qayb qaateen sida akhlaaqda leh ay barnaamijka uga qayb qaateen iyo labada iskuulba sida ay waqtiga u ilaaliyeen aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa waa arrin farxad leh in tartan caynkana markii ugu horeysay magaaladan Baraawe laga hirgeliyo radio Baraawena uu tartankaasi markii ugu horeysay ku guuleysay inuu ka hirgeliyo magaaladan taabagelinta waxaa iskale shirkadda Somtel sidoo kale hay'adda IRF ayaa taabagelinaysa iyaduna dhankeeda dabcan barnaamijyada horumarinta deegaanka waxaan filayaa in maamulka iyo dhammaan dhinacyada ka howlgalaya deegaankani ay iyaguna kaalintoodii ka qaadan doonaan si loo horumariyo waxbarashada deegaankan guud ahaan tartan aqooneedkii ayaa intaasi inoogu idil tan iyo kulanti dambe sidaas iyo ammaano Allah